waxaan iminkan idinkaga soo hadlayaa xaafadda Xoosh ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaan safar gaaban u gali doonaa deegaanka lambar 50 ee hoostaga gobolka Shabeellada Hoose waxaana safarkaasi noogu weheliya Sheekh Muuse Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen Cadde iyo qaar ka mid ah culimo u diin waxaana halkaas idinkaga soo tabin doonaa haddaba eeba qadaro dhacdooyinka halkaas ka dhaca يا نور عيني حبيب الله يا نور عيني صلى عليك الله زيني أبو من ذوي المزية وأمه ذات سرية فقد أرضعته سعدية بإذن رب المشرقين نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله جل ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين